gabar waa uu fiiriyey waa uuna jeclaaday hase yeeshee wuxuu ahaa mid nadiifa oo dhoorsan oo daahir ah oo sharaf badan markii ugu horreysay uu jeclaadayba reerkeeda ayuu ka doontay gabadhii ma aha waxa xilligan jiro oo ah inaan xaaraanta ku hadalno oo xaaraanta aan eegno oo xiriir xaaraan aan samayno kadib aan isguursano waa waxyaaba aan loo baahnayn waan jeclaaday reerkeedaan ka doonanaya waan guursanaya ama waa iska hilmaamaya taas ayaa saxa wiilkii waa uu baxay si uu gabadhii u doonto markii ugu horreysay uu doontay waa la soo diiday mar labaad uu tagay waa loo diiday erga ayuu diray waa la soo diiday maxay rabaan sabab un ayay u diideen allahu aclam gabadhii wiilkii waa ay jeclaatay balse iimaankeeda ayaa daciifa asagana gabadhii waa uu jeclaaday hase yeeshee iimaankiisa ayaa qawi ah oo xooggan waana farqiga u dhexeeya mu'minka iimaankiisa uu xooggan yahay iyo midka iimaankiisa aan xoogganayn taana jaceylka ayaa caddaynaya wiilkaa gabadha markii uu doonay oo la soo diiday waa uu iska sabray ilaahay agtiisana waa uu ka ajir xisaabsaday laakiin mushkiladu waxa ay ka taagnayd gabadhii wiilka ma aysan hilmaamin waxay u soo dirtay fariin waxay tidhi waxaa naloo diiday jaceylkii iyo guurkii ii imaaw ama waan kuu imaanayaa wax walboo aad rabtana waan samaynayaa wax walboo aad samay dhahdo aad rabto waan samaynayaa waayo jaceylkii iyo guurkii waa naloo diiday waan samaynaynaa wax walbo xitaa xaaraanta waa ku dhacaynaa wiilkii fariin ayuu u soo diray gabadhii oo uu ku caddaynayo in weli uu jecel yahay qalbigiisana uu ku xihan yahay xaggeedana uu u soo iilanayo balse uu ka baqayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray warqad oo uu ku soo qoray qul innii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yawmin cadiim waxaan ka baqayaa haddii aan dembigan sameeyo ama aan tallaab xaggeeda u qaado ciribta dambe dhibaatada iiga imaan karta allana wuxuu leeyahay zinada ha u dhowaanina oo zinada ha u dhowaanina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا annaga jaceylka ma xarimayno laakiin waa in jaceylka uu yahay jaceylka xalaasha ilaahay uu jideeyey balse jaceylka maanta jira waa mid internetyada iyo hawada iyo jaatinka iyo lagu isticmaalo ayadana way u qoslaysaa asagana wuu u qoslayaa tan waa wadda xun waa saa'a sabiila waa midii ilaahay uu yidhi oo waddadeeda aad u xun yahay allah waxaan weydiisanayaa in uu naga nabadgeliyo jaceylka aan xaaraamta ah